magaca Eebbe yaan ku bilaabaynaa ee naxariis guud iyo mid gaaraba naxariista. Habeenkii baa waxaa isu tegey labadii ballanku ka dhexeeyey oo ahaa Xasan Khalaf Dalal iyo Axmed Xasan Yuusuf. biyo koday u dhacaan, hadalna dan buu u go'ayey, waxay ku heshiiyeen in Sayid Maxamed laga tashado. dabadeedna waxay taladii ula tageen Maxamed Xasan Geedi oo ahaa nin waaye arag ah. markay u sheegeen waxay doonayaan ama ay damacsan yihiin, Maxamed wuxuu yidhi, war bal korkayga eega. dermadii aan ku jiifay oo aan feker daraaddii ku galgalanayay ayaa jidhkayga murxisay oo sidaa u gashay. dabadeedna waxay ku tashadeen, ninka Sayid Maxamed la yidhaahdaa wuxuu sameeyey wax ka daran buu soo wadaa ee inta goori goor tahay aan iska qabanno. taas haddii laysla gartay waxay kaloo ku heshiiyeen inay ku dadaalaan in taladaas la meelmariyo. haddii arrintii la hogeeyey oo dhowr toddobaad la waday, waxaa kaloo laysku afgartay hal inay lagama maarmaan tahay. hal in si qarsoodi ah loogu sheego ragga ay ku kalsoon yihiin. arrinta in degdeg loo fuliyo intaanu wadaadku dhulka ku xididaysan. isla markaa waxay bilaabeen hebel u sheeg, hebelna u yeer. taasina waxay qaadatay dhowr bilood. maantii dambe ayaa nin magaciisa lagu tibaaxay Cali Kilin oo talada wax ka ogaa, hase ahaatee arrinta fulinteedii raagsadaya, wakhtigiina u dheeraaday, geeraar mariyey oo wuxuu yidhi, ogaadeen habilaawow, ina hoos ka leedow. hiil waxaan geli hayninow, geed weynaan har lahaynow. hugladii baan ku tulo, har qoolay aan ku deeqinow. darmaan heenso wanaagsan aan orodkii holinaynow. ohay way iyo way ey. dabadeed sayidkii markuu geeraarkaas maqlay, dareen baa galay, hase ahaatee meeluu wax u qaado ayuu garan waayey. dabadeedna colkiisii gaarka ahaa ayuu faray inay feeyigaadaan, aqalladiisiina waa isu soo raray. muddo kadibna waxaa ishelay 80 nin oo kala daran iskuna kalsoon. dabadeedna waxay ku ballameen saa dambe in laysugu yimaado balliga la yidhaahdo Gurdumi, nin welibana hubkiisa soo qaato, faraskiisana soo heensaysto. haddii taladii loo fadhiistay, waxay gooyeen sidii rag kale looga qaybgelin lahaa iyo sidii arrinta loo fulin lahaa, waxayna isla garteen in nin weliba ninkuu aaminka ku qabo talada gaarsiiyo, laguna dadaalo inaan xogtooda la ogaan. muddona waa inoo maalintaas iyo meel hebla. waxay arrinii hadba geed harsataba wax sayidka iyo dariiqada madaxa la tusaba. dayrtii arrinta la bilaabay, dayrteedii kale ayaa shirkii ugu dambeeyey la qabtay. markii la hubsaday inay habboon tahay ayaa lays weydiiyey sida ugu fudud oo arrinta loo fulinayo ama loo maamulayo. inkastoo ujeeddadu isku mid tahay, waxaa la weriyey 2 siyood oo kala duwan. hal rag waxay weriyeen iyagoo taladoodu u qorshaysan tahay, ayay sayidka la hadleen oo waxay yidhaahdeen, sidaad noogu timid kuma aanu dabaaldegin. waxaannu garannay inaan dariiqada u soo shirno oo kuu dabaaldegno ee muddo noo qabo. markaasuu muddo maalin la yaqaan ah u qabtay, sidaasayna dariiqada ku yimaadeen. 2 rag kalena waxay yidhaahdeen, dabaaldeg ma jiro ee toos bay u soo shireen. si kastaba arrintu ha u dhacdee, ugu dambaystii rag dhowr boqol tiradiisu gaarto ayaa waxay guddoonsadeen inay beri oo kale isugu yimaadaan balliga la yidhaahdo Gurdumi oo biyihiisu gamashi yihiin, dadkuna daba goosanayo. isla maalintaas sidii awalba caadada u ahayd, ayaa sayidka, qusuusida iyo daraawiishta gaarka ka ahi waxay yimaadeen balligaas oo salaaddii duhur ku tukadeen. markaa waxay ku tashadeen intay fardaha soo fuulaan inay balliga tagaan oo sida la sheegay sayidku waa war jecel yahay, intay u yeedhaan oo ku yidhaahdaan, war baannu helnaya kaalay. markay gooni ula soo baxaan 4 waran isu dhaafiyaan. liyadoo talada lagu socdaa ay sidaa tahay, ayaa markii balliga Gurdumi la soo galay, Maxamed Xasan Geedi wuxuu arkay Cabdigaraad Yuusuf oo talada laga qarshay, asaan laga maarmi karin, oo daraawiishta ku dhex jira. markaasuu wuxuu ka baqay markay qarxato in la dilo. kolkaasuu intuu raggii ka leexday balligii qarkiisa la wareegay oo garaadkii dhegta afka u saaray, oo wuxuu ku yidhi, war shirqoo la doonayo in sayidka lagu dilo baa jira, meesha ka soo bax. markaasaa garaadkii intuu naxay wuxuu arkay ragga horaantiisii oo sayidkii kaabiga u jira iyo iyagoo u yeedhay. markaasuu intuu sidii libaax u booday sayidkii gacanta ku dhegay, sayidii in lagu dilaa loo dan leeyahaye, meesha ka baxso.
markaasaa sayidkii intuu booday oo daraawiishtii gaarka ahayd ku dhex dhacay wuxuu yidhi war cabbaysta kolkaasay Abu Cabbaas oo meeshii duhurka lagu tukuday fadhiya waran ku dhufteen oo waxay yidhaahdeen xujay ku har isla markaas laba saf baa loo kala dilaacay meydkiina wuxuu noqday sida kashkaashka dabadeedna qoladii shirqoolka waday waa baqeen waana la kala qaxay galabtaasna ninba wixii xoolo ahaa oo uu gacanta la helay ayuu horay u kaxaystay ama u buubsaday daraawiishtii intay is-uruursadeen ayay qaxii ka daba duuleen weerarkiina waxay gacanta ku dhigtay geela la baxay Garbacase goobtaas waxaa loo yaqaan kala kici gurdumi gabaya badan baa laga mariyey Gondogooye qalalaasihii gurdumi hadday dhaceen kadib ayaa daraawiishtii raqdii ka guurtay oo waxay degtay meel la yidhaahdo Dhiita oo laba geedi guur u jirta gurdumi kana xigta dhanka waqooyi rag talo kama dhammaatee haddii dib laysugu noqday oo xaajadii la hileeyey waxaa nimankii shirqoolkii abaabulay ku tashadeen in daraawiish ergo loo diro si wixii dhacay looga wada hadlo loogana heshiiyo dabadeedna laba nin oo caqli iyo codkarnimaba rag laga xulay ayaa loo diray hase yeeshee taladaas guuli kama dhalan oo markay dariiqadii tageen ayaa laba laysugu xiray oo lugaha bir laga jebiyey dabadeedna sayidkii farduu diray oo waxaa la faray inay raggoodii u sheegaan wuxuuna yidhi waxaa ku tidhaahdaan ragga furta oo waxaad ku furataan 2 buntuq oo daraawiish galabtii gurdumi lagala cararay iyo ninkiiba hal eber halaad hase ahaatee iyagaaba sayidka geel ka doonayay muddana waa u qabtay muddadiina laguma imaan haddana muddo kalaa loo qabtay taana waxba waa la keeni waayey dabadeedna muddo 3 buu u qabtay markii waxba laga waayey waxaa nimankii lagu xukumay in la laayo taana waxaa loo yaqaan Gondogooye waxaa jira gabayaab leh oo Cabdi Xirsi Gondogooye ka tiriyey ee doon waxaa la weriyey subaxda la layn doono habeenkeeda sayidku wuxuu ku tahayay cashadu Abu Cabbaas ila ballamay caaway sow maaha raggii la laayay waxaa ka mid ahaa Cabdi Maxamed Waal oo sayidka walaashiis qabay waxaa la weriyey Tooxyar waxay ku dadaashay inaan ninkeeda la dilin hase ahaatee qob iyo qadan midna kuma helin markii la dilayna waa oyday dabadeedna waxaa la yidhi naayaan lagu dilin aamus waxayna marisay buraanbur waxay tidhi bilaawaha kan daabka la hayaa hadduu i dilo dadkiiba idlaaye aakhira haddaan u dego cabdi haddii la igu daro derajadee ka roon dariiqadii waa guurtay oo waxay degtay balliga la yidhaahdo Caado rag Xuseen Xirsi Dalal Iljeex wato ayaa xabashi qayle gees ugu kacay markay ka war heleen in raggii la laayay dabadeedna amxaaradda ayaa col adari ka soo qalqaashay colkaasuna wuxuu soo maray jid aan laga filayn garwadeenna waxa uu ahaa niman Soomaali ah intay xabashidii marin gediyeen oo hoos iyo doolo ka wareejiyeen ayay arladii daraawiishi deganayd geesta bari kaga keeneen amintaas xabashidu hub fiican ma haysan waxay ku dagaal gashana waxa u badnaa seef qaloocan iyo buntuqii jikraha ahaa daraawiishuse buntuqa xoog bay u haysatay waase saanad laayeen hase ahaatee intay xoolihii qaxiyeen ayay baqabeenle ku dagaal galeen si kastaba arrintu ha u dhacdee daraawiishtu waa baqatay xoolo aan yarayn oo mood u badanna waa ka carareen waxay u kaceen nugaal iyo dhulkay markii hore ka yimaadeen hal garaad cali waa tii la dilay 2 jigjiga waa tii xabashida igu weeraray 3 dayax weerar oo ka dambeeyey baa la dhigay 4 kala kicii gurdumi baa dhacay maxaa xigi inkastoo daraawiishi nabaddii geed dheer oo aan laga soo rogi karayn ku laashay haddana nugaal bay dib ugu soo laabtay maxaa taa ka dambayn dariiqadii waxay degtay baaraan oo magaalada laascaanood koonfur hawd ka xigta waana xarunta la baxday fadhiweyn dabadeedna dabayshoodii ayaa dhulkii gilgishay waxaa la ogaaday in ingiriisku col soo dumay oo dagaal ku qalqaalo jiro inuu daraawiish ku duulana goostay dhaqsana u soo bixi doono hase ahaatee taas daraawiishi heegan bay u tahay